ciidanka booliska gobolka Nugaal oo maalmihii la soo dhaafay waday howlgal culus oo lagula dagaalamayo mukhadaraadka khamriga iyo qaadka ayaa xalay howlgal ay ka sameeyeen magaalada madaxda Puntland ee Garowe waxay gacanta ku soo dhigeen qaad si dhow Malaysia lagu soo galiyay howlgalkaasi kadib waxa qaadkaasi dab lagu qabadsiiyay bartamaha saldhigga dhexe ee Garowe waxaana halkaas warbaahinta kula hadlay taliyaha ciidanka booliska Puntland Saraayagas Muxiidiin Axmed Muuse Muxiidiin taliyaha ciidanka booliska Puntland waxa uu digniino kala duwan u diray dadka cadaystay ka ganacsiga qaadka oo sida dhuumaaleysiga ah ku soo galiya deegaanada Puntland ciidamada iyaga oo aan shaqada ku jirin qoriga la dhaxmaray gudaha magaalada iyo sidoo kale dadka bisha Ramadaan kariya cuntada xaaraanta waa kan taliyaha ciidanka booliska Puntland Saraayagas Muxiidiin Axmed Muuse aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ciidanka hawlusha ay qabteen iyaga oo waxa oo mukhadaraada oo coronavirus oo jira ah ka soo qabtay ummadda cid kasta oo haysana waa laga soo qabanaya qofna baxsan maayo waxaaga ha iska khasaarin dagaal adag baa lala gelayaa meel walba waa laga joojiyey jiruu wataa waa la joojiyey kuwa tuulooyinka taga kuwa degmooyinka taga kuwa xeebaha taga kulli waa la qabanaya dadka qaadka ka shaqeeya qof baa loo yaqaana waxaan caawa amrayaa meel kasta ay joogaan dadka ka shaqeeya in la soo qabto hadduu tuulo geeyo iyo hadduu magaalo geeyo iyo hadduu degmo geeyo iyo hadduu magaaladan keeno iyo hadduu magaalo kala geeyo iyo magaalo madaxyada kuwa geeya waa la yaqaan dhammaan horta iyaga in la soo qabto oo sidaasay ku yihiin dambiilayaal waxaa kaloo dambiilayaala oo la soo qabanayaa dhammaan cidda khamrada ka shaqaysa oo uga digayna cid kasta oo khamra ka shaqaysa oo la yaqaan waa la soo qabanayo loo raadin maayo ma hayo waaba la yaqaan inuu ka shaqeeyo oo waaba la yaqaan ma isagaa u baahan waxa uu ka shaqeeyo qof walba waa la yaqaana waa la soo qabanaya waa iska daaye iyo xagguu ka baxay ma jirto waa la soo qabanaya waxaan kaloo uga digayaa caawa halkan dadka wata dharka cadcad iyo qoryaha isku wata iyo dadka aan shaqada ku jirin oo tuuta iyo qoryo isku wata oo marfashiya fadhiya tuuta iyo qori buu wataa waana qayilaya qaadkuna waa mamnuuc waa la qabanayaa digniin baan siinaynaa ciddii aan ku aragno ciidamada ciddii la dagaalantana way la dagaalamaya ma la ogolaanayo qaad xaaraana intaad bannaankaa la fariisatid inaad marfish inta la fariisatid qori ku difaacdid nina kaa yeeli maayo ciidamada istaafyada iyo ciidamada ka tirsan ciidamada iyo dhammaan cid kasta ha ahaatee waa uga digaynaa inay qori laguma wadan karo magaalada dhexdeeda ciidan aan shaqo ku jirin ciddii lagu wato lagu qabto hadhow yay soo dooni qoriga yay soo dooni waxaan kaloo u digayaa oo halka uga digayaa dadka burcadhuleedka ah oo caadaystay intay qoryo qaataan inay meel tagaan ma jiri doonto haddii ilaa hidmo burcadhuleed waa u digayaa qof qori qaatay oo bogcad u qaatay qofkii dacwo qaba ha yimaado sharciga hebel baan sharci u qabaa hebel baan dacwo u qabaa halkaa ha yimaado laakiin qoryaan qaadanayaa ciidan baan urursanayaa burcad koox baan abuurayaa burcad dhuleeda lagaa yeeli mayo waana naqaanaa dadka noocaa ku shaqaystana waa naqaanaa hebel baa loo yaqaan
hadday dhacdo cid meel tagtay dhulkana waa lagala wareegayaa iyagana waa la xirxiraya ciddii isku adkaystana tilaabo sharcigaa laga qaadayo layima sheegin ha oran waxaan kaloo halka uga digayaa dadka xaaraanta ka shaqeeya ramadaanka dadka xaaraanta ka shaqeeya ama duurka taga oo taga meelahaas oo buundooyinka iyo halkaa iyo kuwa xagga aada iyo kuwa bixin aada iyo kuwa fallayriyaale aada waa u digayna haddii ilaahidmo qofkii lagu soo qabto isagoo wax karinaya ama duurka ku qayilaya ama duurka wax ku karinaya ama magaalada dhexdeeda wax ku karinaya inta bisha ramadaan ka hartay waa xiraanaya ganaxna waa loogu daraya bisha ramadaan inta ka hartana waa xiraanaya waxaan leeyahay sharciga aan u wada hoggaansanno aan waxa xun iska ilaalinno waxaas weeye waxaan leenahay waraa la iska daayo gabdhaha waxaan leeyahay irsaaqad kale allah ina siiyo oo xalaala kan waa xaaraan waxa ka heshidna waa xaaraan caruurtaa ku kori xaaraan baa ku korinaysa wax ka khayr badan allah ina siiyo dadweynaha inta wanaagga jecelna waxaan leeyahay ciidanka la shaqeeya oo meel alla meesha aad aragtaan oo wax lagu karinayo ciidanka soo wargeliya ciidanka la shaqeeya ciidanku meel walba ma taagna laakiin waxani waa xaaraantaas ha layska kaashado annaguna diyaar baan waxaan u nahay cid kasta oo xumaan ka shaqaynaysa in la soo qabto aad iyo aad baana u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa haddana waa la gubayaa waxaan rajaynayaa kuwo badanna in lasoo qabto oo la gubo qof walbana inuu ku cibro qaato oo la joojiyo bahalkaa baan rabnaa oo tuulooyinka iyo degmooyinka dadku ciidanku meelaha uusan joogin dadku inay sabaabulaan oo gubaan oo qabtaan baa la rabaa odayaashu ka qayb qaataan dhallinyaradu ka qayb qaadato in lala dagaalamo aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu taliya magacaygu waa jaamac ciise su-aasha cid walba isweydiinaysaba waxay tahay qaadkan cid baa keenta soo gelisa magaalada idinkuna markii magaalada la soo geliyo islaamihii masaakiinta ha iibsadaan kadib baad soo ururisaanoo halkan keenta dadkii qaadkan keenayay maxaad u soo bandhigi weydeen oo dadka bulshada u horkeeni weydeen hadday daacad idinka tahay arrintan waxaan waa virus weeye viruskuna meel walbuu jiraa si walba waa wax kaa xoog badan kaa gawaari badan 50 meelood buu ka soo gelaya meel walbana waa irid meel walba waa wada furan weeye marka iyaga lama heli karo laakiin annagu qaadka markaan helaan soo qabanayna iyaga haddaanu helana waa soo qabanayna qaar badan oo iyagaana waa la soo qabtay waa jiraan waa soo qaban 2 3 4 jeer waa soo qaban waa u soo bandhigin maya xaggaasaa lagu gubay waa idinkaan joogine xagga bannaankaa la geeyey waana ka badnaa hadday hawl qarani socon haddaa wax waliba hagaagaya hadday hooyadii maqsuud tahay haddaa hooyigii heshiis yahay hadday hawl qarani socon haddaa wax waliba hagaagaya hadday hooyadii maqsuud tahay haddaa hooyigii heshiis yahay إلك مغنى أبوانا دسوهلي حتى مشغل الله هلي هرو مر ليلي حتى هلي لإربان هرو الله لانيا حتى كان هيا لغو هلاك وهلاك ميا حتى إلك مغنى أبوانا دسوهلي حتى